maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa maanta si wada jir ah u daafuray bilowga diiwaangelinta madaniga ah oo maanta si rasmi ah uga bilaabantay gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriyo oo ku dheeraaday ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay diiwaangelintu bulshadana ugu baaqay inay ka wada qayb qaataan diiwaangelintaasi madaniga ah isla markaana lagu aqoonsanayo shacabka ku dhaqan Soomaaliland isla markaana u dhashay dalkan Soomaaliland asagoo ka hadlaya gudoomiyuhu arrintaasi waxa uu yiri inaan maanta iska diiwaangeliyay xarunta gobolka Togdheer oo aan kaarkayga qaatay iyadoo ay tahay bishu 22 bisha February kaarku waxa weeyaan kaarka aqoonsigu waxa weeyaan waa shakhsiyadda qofka haddii aanu wax lagu garto sidan waa iska xoolo bilaa sumada ayuu noqonayaa waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa shacab weynaha gobolka Togdheer ama magaalada Burco oo ay maanta ka socoto diiwaangelintii inay qaadataan waraaqihiinii aqoonsiga sida u noqotaan dad sumad leh ageesta kale waxa iyaguna halkaasi hadallo dhammaantood bataabanaya muhiimadda iyo qiimaha ay leedahay diiwaangelinta ka soo jeediyey hadduuqa golaha deegaanka degmada Burco Ustaad Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad xogayaha degmada Burco iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer oo dhammaantood bataabtay ahmiyadda ay leedahay diiwaangelintu waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tani waxaa halkan ka bilaabmaya gobolka Togdheer degmada Burco diiwaangelintii madaniga waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Togdheer ama reer Burco inay si quman oo hagaagsan oo karaamo iyo sharaf leh ay u gutaan xilka iyo waajibaadka diiwaangelinta oo ah muwaadin kasta oo reer Togdheer ah inuu isdiiwaangeliyo waayo haddii maanta ay ku dhaafto waxa laga yaabaa inay kugu adkaan doonto sida mar dambe isu diiwaangelisay waa maalin qiimo leh oo magaalada Burco ama gobolka Togdheer farxad oo ah wax badan baan sugaynaa ama naawileyna hadii reer Burco nahay kaarka inaan qaadano diiwaangelinta sida hore loogu sheegay waa jinsiyadii muwaadinku kaga duwanaa ajnabiga kale marka fahamka dadweynaha waxaan ku celcelinaynaa in aad u fahmaan qiimaha uu leeyahay kaarkan dadweynaha la siinayo oo uu qaato muwaadin kasta oo uu baadisooc kaga ahaado ajnabiga kale marka waxa weey wixii qaangaala ee maanta lab iyo dhadigba leh ee dadweynaha reer Burco leh waxaan ku wacyi gelinaynaa oo ugu celcelinaynaa inay fahmaan inay qaataan inay ka qayb qaataan in qof kasta muwaadinana goobaha loo wacayimay ee magaalada aan u cayimnay ee aan u dhignay in goob kasta uu yimaado oo halka ka yimaado oo uu ku rido uqaasha lafteeda reer Burco waxaan ku sheegaynaa maanta in laba caaqil goob kasta laba caaqil la geynayo marka inay diyaar garoobaan liiska waa uqaasha ka ratisargeeraysan uqaasho dhan maaha gobolka Togdheer ama degmada Burco ayaa la doonayaa goob kasta laba caaqil baa joogaya caaqilkaasi wuxuu kala soocayaa dadweynaha reer Burco ama dadka reer Soomaaliland ee sheeganaya haybta Soomaaliland qofkii aan haybta Soomaaliland ahayn inaanu kaarkan qaadanayn caaqilka su'aalaha soo weydiinaya goob kastana laba caaqil baa joogaya Maxamed Ali Ahmed Kaabe wararka telefishinka madaxa banaanay Bulsho TV magaalada Burco.